samafale wariye cabdimaalig muuse caldoon oo warbaahinta kula hadlay magaalada burco ayaa soo bandhigay xogo sheegay in xukuumadda Soomaaliland qorsheynayso inay xidho wuxuuna ka warbixiyay sababuhu muddo 7 bilood uga maqnaa dalka isagoona xusay in Soomaaliland loo wada siman yahay oo aanu sharciga dalku qaban cid gaar ah xogta ay sheegaysaa sida ay sheegayso waxa soo gaaray magaalada burco oo ka soo gaaray dhinaca magaalada Hargeysa amar la doonayo in la igu qabto in qofka la xiro oo xorriyadiisa si fudud looga qaada waxa iska noqotay wax iska caada laakiin hadii la xirayo xamar iyaga iga dheereeya iyaga la leh xiriir muuqda iyo mid qarsoon hadii la xirayo cabdi ilaa tigreegiisa taliskaasi wuu halaagsamay wuu dhacay inta soo hadhayna way sii rafanaysaa cibra qaadashana way noogu suganta hadii la xirayo warbaahintayda iyo wararka aanay jeclaysanayn taliska Muuse Biixi waxay noqonaysaa caburin iyo aragti kaleba yaana jirin taasina wax suuragal maaha wax loo ogolaan karana maaha 7 bilood magaaladayda burco waxaan uga maqnaa waa lagu qabanaya iyo waa lagu xiraya runtii sharcigana waxa fiican in loo sinaado oo uu noqdo sharcigu mid dadka oo dhan xumahay wada qabanaya laakiin hadduu noqdo sharciga waratada ganaaxa wasiirkana gool u looga sidii uu sheegay warsame sharcigaasi sharci maaha waxa jira kuwo aaminsan in iyagu Soomaaliland dadka ka xigaan in iyaga aan Soomaaliland looga baqayn oo midha iimaankooda Soomaaliland baa midha sareeya ayaan kuwa ku sifeeyay waxay kaloo ka aaminsan yihiin qeyrkood in iimaankoodu hooseeyo iimaankooda tabcan Soomaaliland inuu hooseeyo oo iyaga looga baqayo Soomaaliland waa la wada leeyahay cid ka sareysa ma jirto waxaasina wax la ogolaan karo maaha waxa xusid mudan doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday Soomaaliland gaar ahaan doorashadii madaxtooyada ama madaxweynaha Muuse Biixi meelo kala duwan ayaa laga taageeray dadka taageeraya waxa weeye dambay ka lahaayeen cid kasto cid taageeraysaana tii dambay ka leedahay dhinacyadii taageeray Muuse Biixi waxa kamida taliska Cabdiile waana la wada ogyahay laba arrimoodna ugu muhiimsana wixii loo taageeray Muuse Biixi kow in taliska Cabdiile loo fududeeyo waxa kaga xidhmay Soomaaliland laba in Cabdimaalig Sheekh Muuse Caldoon waxa laga qabto lana amsiyo runtii arrinkaasi arrin la aqbali karo maaha qaabkan wax loo wado oo taliska Muuse Biixi uu wado oo ah inuu xarig u adeegsado dadka ka aragti duwan yani wax xalab maaha yani waxaana inoogu sugan oo lagu dayay oo dawladaheena jaarka hadaynu eegno Ethiopia kacdoon baa ka socday 3 sanadood kacdoonkaas waxay ahaayeen caburin iyo aamusin iyo xarig way diideen dadkaasi maya bay yiraahdeen kumanaan baa kaga dhintay maanta waxa loo yeelayaa siday doonayeen dadkii madaxa kaga taagnaana maanta way hooseeyaan marka cibra qaadasha inoogu sugan dalka waa la wada leeyahay xal maaha xarigu Mahad Ali Goodir Star TV Burco.